waxaana wanaagsan dhammaan asxaabtiin qaaliga ah waxaan idin tusayaa markaa computer iibsanaysaan qaabkaas ay eegi lahaydeen ayaan idin tusayaa. qof walba computer iibsanaya barnaamijkan aad ayuu muhiim ugu yahay, saas darteed la socdo wanaagsan. marka koobaad halkaas search barka ayaan imanaynaa, type here to search, halkaas ay ku qoran tahay ayaan imanaynaa. kadib waxaan ku qoranaa run ayaan ku qoranaa. run markaan ku qoran kadib runkaas halka kore ku qormaya ayaan click leenahay. kadib waxaan ku qoraynaa ms info 32 ayaan ku qoranaa. okay ayaan leenahay. okay markaan dhahnay kadib wuxuu noo soo saarayaa operating systemka computerka oo dhan inuu noo soo saaray qaab maxaa la dhahdaa systemkiisa oo dhan iyo software systemkiisa oo dhan iyo noo soo saaraya. marka koobaad haddana operating system name-ka inaan ogaano doonano waa Windows 10, Microsoft Windows 10 Pro ayaa ku jira. maxaa la versionka marka ahaan ku jiro waa 19042 weeyaan. maxaa la dhahdaa halkan kale waa operating system manufacturerka shirkadda sameysay waa Microsoft Corporation ayaa sameysay. maxaa la magaciisa computerka magaciisa waa arka Lenovo. system modelka uu computer ay garanayaan kan weeyaan, iyagoo ay garanayaan ma ahan Lenovo waa shirkadda, laakiin systemka waa kan. maxaa la dhahdaa modelkiisuna maxaa la dhahdaa waa kan hoose, laakiin kan waa operating systemkiisu waa 64 bits. maxaa la systemka modelkiisuna waa Yoga S1 Yoga 12 ayaa la dhahdaa, waa modelka weeyaan kaasi. modelkan maxaa la processorkiisu waxaa weeyaan Intel Core i5 numberkiisa 2.3 GHz speedkiisu yahay. kadib maxaa la dhahdaa waqtiga la sameeyay ama BIOS version date BIOS basic input output systemkiisu waxaa la sameeyay 2018 November 10 ayaa la sameeyay. maxaa la BIOS versionkiisuna waa 2.7. maxaa la waqtigii la sameeyay wuxuu dhan halkaas maadaama ku aragnay. haddaad doonaysid waqtiga inaad ogaatid halkaas aad ogaan kartaa inta ku jirto maxaa la dhahdaa RAM-kiisu yahay waa local meesha lagu sameeyay. marka tusaale waa US United States ayaa lagu sameeyay. waddanka sameeyay lafteeda halkan aad ku ogaan karaysaa. wax badan ayaad halkan muhiim ayaad ka helaysaa markaad aad soo gashid halkan software systemkiisa. kadib haddaad inaad ogaatid doonaysid RAM-ka ku jira halkan waa ka ku qoran isagana install physical memory waa 8 GB. markaas saasaad ku garan karaysaan. wax walba halkan laga helayaa iyagoo ay sheegay iyagoo faahfaahsan halkan aad ka helaysaa CD-ROM multimedia sound devices maxaa la displays inverter wax oo dhan halkan ayaa laga heli karayaa. markaas aad iyo aad baan idin salaamayaa. waqti aad joogtaan oo wanaagsan ayaan idin rajaynayaa dhammaantiin.